shirkaas waxa khayr baan ka rajaynaynaa afar qodob baan rajaynaa in looga hadlo doono abaaraha dagaalka khawaarijta lagu jiro iyo dastuurkan bilaalqada noqday oo nin doonayo madaxweynaha dalkan ka inuu doonayo oo dhowr saddex bilood waxa dhay oo doonayo inuu ka dhigto uu rabo inuu ka dhigto shaati isagu leeg u tolanayo kale inuu ka dhigto dastuurkaas in la joojiyo oo xildhibaanada Soomaaliyeed oo laba deegaan matal ay ka maqan yihiin xildhibaano kale oo ka mid yihiin xildhibaanadii gobolada waqooyi bari marka ama waqooyi galbeed baan dhaho marka dastuurkaas waxa kamid doorashooyinka nooca doorasho la aaday xilligan doorasho uma muuqdo waqtigeedu waa dhamaaday 4 sano waa dhamaatay waxaan rajaynaynaa marka in doorashada iyadana kala tidadbaneed weeye qaabka u dhicleed in laga hadlay waqtiga dhici lahayd afarta ajenda baan rajaynayaa in biri looga hadlo doono in la isku fahmo ayaan rajaynayaa oo haddii ay dawladdu diyaar u tahay waay laakiin markasta madasha mucaaradku diyaar way wixii gartooda maya dastuurkaas waa waxyaalaha ceebta dadka Soomaaliyeed arkeen way waa ceeb iyo fadeexad way in dastuurkii aan heshiis lagu ahayn laga shaqeeyo dastuurkeeda waa heshiis bulshada way heshiiska bulshada haddii aan raadi laga ahayn oo qolo gaar ah inay ka shaqeysto waa waxaan hore u sheegnaa leenahay shaati oo nin electronic way mana la aqbalayo meel ka shaqeynayna male